Ku soo biir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum. Waa maxay faa'iidada cayayaanka? Noocyo badan oo iyaga ka mid ah ayaa inagu xeeran oo badanaa ma garanayno ujeedada jiritaankooda. Anaga ahaanna waxaan dhahnaa waa noolayaal oo aan dhibsanayno oo aan faa'iido ama wax shaqo ah aanan ku qabin oo aan ka ahayn inay carqaladeeyaan. Tusaale ahaan, tixsi ama tuqsi. Waa maxay faa'iidadooda? Oo sidee cayayaanka noocan ah oo aan dhibsano faa'iido inoogu yeelan karaa aadane ahaan? Su'aashani waxay ku soo noqnoqon doontaa maskaxda qaarkeena waqti walba, laakiin dhab ahaantii cayayaanka ayaa si dabiici ah faa'iido u leh nolosheena bini'aadin ahaan. Runtiina ma buunbuuninayno haddii aan dhahno cayayaanka iyaga ayaa mas'uul ka ah isku dheelitirka nolosheena oo dhammi. Dusha sare ee dhulka la'aantoodna nidaamka deegaanka oo dhan wuu burburi lahaa oo halaabi lahaa. Waa inaad ogaataa inay jiraan noocyo badan oo cayayaan ah oo wax ka geysto dhinacyo badan sida beeraha, warshadaha, cilmi baarista, nafaqada iyo daaweynta. Cayayaanka ayaa faa'iidooyin badan inoo leh aadani ahaan, laakiin nasiib daro inteena badan kama warqabno. Muuqaalkaanna waxaan kaga hadli doonnaa faa'iidooyinka ay inoo leeyihiin cayayaanka. Naceebka aan u qabno cayayaanka waxaa laga yaabaa in ay ugu wacan tahay aqoon yarida ee aan u leenahay noloshooda. Duqsigu ama tixsigu macna ahaan waa cayayaanka ugu caansan uguna caansan adduunka. Wuxuu joogaa ku dhowaad dhammaan xilliyada sanadka, laakiin haddaan hadda kaa codsado inaad hareerahaaga eegto, waxaad ogaan doontaa in uu yahay kan ugu caansan. Imise indhood ayuu leeyahay tixsigu? Ma leeyahay ilko? Imise lugood ayuu leeyahay? Cimri ahaanna intee ayuu noolaan karaa? Inta badan jawaab ma hayno, marka ii ogolow inaan kuu sheego. Tixsigu waa mid ka mid ah cayayaanka ugu layaabka badan. Qaab dhismeed ahaanna waa mid aad u jilicsan. Wuxuuna leeyahay 6 indhood, waxayna ka kooban yihiin 6,000 oo lenses. Waxayna awood u leeyihiin xawaare ka sareeyo kan bini'aadinka in ay wax ka arkaan. Tanina waxay kuu sharaxaysaa fashilka aadanaha mar walba ku yimaado ee joogtada ah, ee ah marka uu isku dayayo in uu dilo tixsiga. Maxaa yeelay isla marka uu arko oo uu bilaabo weerarka ama dilidiisa, tixsigu wuu arkay isaguna, wuxuuna qaatay taxaddar lagama maarmaan ah. Tixsigu ma lahan calool, wadnihiisuna wuxuu garaacmaa 16 garaac ilbiriqsigiiba. Garabkiisuna marka uu duulayo wuxuu ku kacaa xawaare dhan 300 jeer ilbiriqsigiiba.